diiwaangelinta codbixiyaasha Somaliland ayaa si habsami ah uga soconaysa guud ahaan gobolka Saraar iyadoo dadweynaha gobolkuna ay safaf dhaadheer ugu jiraan qaadashada warqadda codbixinta oo laga bilaabay 24kii bishan. wasiirka wasaaradda dib u dejinta Cali Saciid Reegal oo uu heliyo gudoomiyaha gobolka Saraar ayaa kormeer 12 saac qaatay ugu baxay deegaanada waqooyi ee gobolka. wasiirka iyo gudoomiyuhu waxay soo kormeereen degmooyinka iyo tuulooyinka ku yaala buuraha iyo dhinaca gubanka, waxaana kamid ahaa goobaha ay mas'uuliyiintu gaadheen degmooyinka War-Idaad, Wiriir, Ceelal, Dhanaano iyo tuulooyin ay kamid yihiin Balaadhis, Qoridheer, la helay iyo tuulada Gumburo Carro oo dhamaantoodba ay ka socoto hawsha diiwaangelintu. wasiirka iyo gudoomiyaha gobolka Saraar waxa ay mid u galeen goobaha ay ka socoto hawsha diiwaangelintu oo isu jira masaafooyin aad u kala fog, iyagoo dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasna ku dhiirigeliyay in ay si mug leh isu diiwaangeliyaan isla markaana ilaaliyaan xasiloonida iyo habsami socodka hawsha diiwaangelinta. ugu dambeyntii wasiirka dib u dejinta Somaliland Mudane Cali Saciid Reegal iyo gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax waxay warbaahinta kula hadleen tuulada Qoridheer oo qiyaas ahaan 80 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Caynabo ee xarunta gobolka Saraar, waxaana ay ka warbixiyeen ujeedada safarkooda iyagoo shacabka deegaanadaasna ugu baaqay in ay isdiiwaan galiyaan. saaka subaxnimadii 6 subaxnimo ayaan wafdi ku baxnay oo hogaaminayo wasiirka dib u dejinta Cali Saciid Reegal warasaabkii waxaanu kormeerkaas ku saabsanaa oo korgalida iyo habsami socodka hawlaha diiwaangelinta. waxaanu soo marnay dhul badan baanu soo marnay, halka waxaanu ka gaarnay Ceelal dhul badan baanu soo marnay oo diiwaangelintu ka socoto, anagoo dadkana u sheegayna ujeedada wacyigelinta iyo muhiimadda uu leeyahay in fursadda laga faa'iideysto. wadanka aanu soo marnayna uu wanaagsanaa, si wanaagsan uu socday, nabadgelyo aanu ku socday. إن شاء الله بسم الله الكريم سوى أكسنا ونقول ما ندرا كرمال كيجو وجدده ولا هوا وجدده أشياء. ده واحد لا هذا مهدم قوية ساكن اللحدين عن الصعداء البلوني أنا قرنا بدقة من حتى طول هذا قرن اللي توقصون نقولني أنا جو سبرا ساق شيء كرمال كيجو هاينا نوجانه هؤلاء الديوان كلنت هي كالصعداء ديجا مدة قبل كسرار أما تكمل عينا بحكمته قابك أوسع عنيان iyo inaan xog ka noqono wixii ka jira iyo inaan nabadgelyo ku soconayaan maadaama aan xukuumadeenahay oo loo baahan yahay inaan ilaalino goob walba si ammaan oo wanaagsan inuu shaqeynayso sida runtiya si wanaagsan oo qurux badan ayay intii goob aan soo maray ay u shaqeynayeen oo habsimo ah. insha Allah waxaan ku rajo weynahay inay sida wanaagsan ay ku dhamaato lahaydmo dadkana waxaan faraynaa oo meel joogan baa u sheegaynaa inaanay ku celin codka oo aanay ku noqon si aan u guban codkooda sax qof walba hal mar oo kaliya inuu isdiiwaan geliyo. waxaan ku rajo weynahay cod fara badan oo tiro fara badan inay ka soo baxi doonto gobolka Saraar, sida awgeed qofna yaanu codkiisa ku celin, qof walba hal cod buu leeyahay, halkii saacad waa inuu ka nasiib qaado oo iska ilaaliyo wixii dayaca. Nuruddin Abdullaahi Culijoog, telefishinka qaranka Somaliland, Caynabo.